wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة ونكسن maanta cashirkeena waxaan ku qaadanaynaa spelling s iyo es iyo pronunciation kooda qaabka loo spell gareeyo loo qoro iyo qaabka loogu dhawaaqo. So waxaa jira cashirkan markaad gudaha u galayso si taxadir leh u dhageyso waayo s qaabka ay u qaadato iyo es qaabka ay u qaadataan ka hadlayna annagoo faahfaahinayno consonant-ka iyo vowel-ka qaabka ay wax u kala saartaan. Then waxaan dhaynaa marka she runs 6 miles every day. She runs 6 miles every day. Runs. She runs. So S lagu daray waa verbka. Let's see. Run, runs waa spelling and the pronunciation, how it's pronounced. Then rain, rains. Scrub, scrubs. Love, loves. So S markaan ku dhawaaqayo waxaa la yidhahaa voiced. Yani waa voiced. waa dhawaaqitaankeeda waa la dareemaya. Runs, rains, scrubs, loves. Okay, inta marka goorma la qaataa runs s goorma la isticmaalaa oo rains goorma lagu daraa waxaa la isticmaalaa in third person singular ayaa waxay qaataan s. hore waxaan soo baranay he walks, she walks, it walks, something like that. Rain, run, orod. Rain, roob. Scrub, xoqid. Love, jacayl. Sink, sings. Meet, meets. Fight, fights. Cough, coughs. kuwan waxaa la yidhahaa voiceless. Sings, meets, fights and coughs. Sink maxaa waaye waa quusid shay quusaya ama degayo. Meet la kulan. Fight dagaal. Cough qufac. kuwaana waxaa la isticmaalaa estan lagu daraa in the third person singular. It sings, she sings, I mean he sings, it sings. Sings for example marka quusi waxaan leenahay the ship sank waa past tense. It sinks wuu degayaa. Meets, fights and coughs. Spelling kan fiirina again or push, pushes. Watch, watches. Miss, misses. Tax, taxes. So horena u soo qaadan ereyada sh, ch, ss and x qaato u dambe ku dhamaado inay es qaataan oo laakiin ez loo akhriyo. laakiin weli waa third person ayaa es qaadanayo. meesha markaan u jeedo waa tanaha. For example, si fiican u fiiri ies inaan ku daro rules aan marayaa. Y markay ka soo hormarto consonant waxay qaadanaysaa ies, study, studies. Dry, dries. Consonant r and consonant d ayaa wax lagu darayaa y. So always marka y da tuuraysaa y ayaad ku bedeli then you add es. That's how now it sounds. So change y to I and add es in the singular form. Then markuu yahay y-da erey ka horeeya vowel ama shanta a e i o u hore s uu ka qaadanaya ies loo bedel. Pay, pays. Buy, buys. Or vowel plus y. So in the singular, third person singular, you add s straight. Then I'm fearing irregular forms marka. Have, go, do. Have, has. I have, she has. I go, he goes. I do, she does. So will third person y. Okay? So has, goes and does. Z loo akhrinaya es tas waa has, goes, does. So in the third person singular form irregular weeyaan marka kan waa they are all irregular terms. Let's practice. Push isticmaalina. Mark pushes his bike up the hill every afternoon. Pushes. Mike pushes his bike up the hill every afternoon. Mark wuxuu ku sariixaa bashkiladiisa buurta asoo sila sii fuulaya galab walbo. The child brushes his teeth every morning. Brushes. So the child brushes his teeth every morning. Canuga wuxuu cadaysaa ilkihiisa subax walbo. Dream. Brenda often dreams about her old home. Brenda often waxay si mar walba ku riyootaa about her old home gurigeedii hore. Then next time intaan ku kulmayno cashirkeena waxaan ka bilaabi doonaa the simple present tense oo negative ah. So hamogaani waa cashir aad u xiiso badan maadaama tense-kan ku guda jirnay. Hamogaani the simple present tense in form of negative. waa soo gaabay cashirka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.